السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ونكسن halkani waa Duuli Media in badan waxaad isweydiinaysaa maxaa keeno guurka ka hor fahandarada ka dhaxaysa labada qof ee isshukaasanaysa ama wada socda maxay tahay sababta kale ee keeni karta in labadan qof aan wali isguursan isfahmi waayaan waxa laga yaabaa in su'aashaasi dad badan ay isweydiinayaan maanta waxaan rabaa inaan idin caddeeyo baaritaan aan ku sameeyay su'aashaas oo faahfaahsan laakiin waxaan kusoo koobi doonaa 3 qodob oo sal u ah waxyaalaha sababay in labada qof aan isguursan isfahmi waayaan ama shukaansiga ay ku kala tagaan waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobo si aan u dheeraanin barnaamijka marka ugu horeysa waxaad isweydiinaysaa horta waxaan waa wax qadar ilaahay keena waaye in lagu qancana waajib tahay da muslim nahay qadarta waan aaminsannahay laakiin waxaa jira waxyaalaha sabab u ah waxyaalahaas dhacaya ama ilaahay u sameeyo sunnooyin ee tahay in lagu dhaqmo adduunkan aan marna isbedelaynin hadda sababta talimaadidna waxaase ay ku haleeli doonaan sida in la iska ilaaliyo oo maxaa ku ilaalada waxyaalaha xunxunka oo kale sida in qofku gacmaha dhaqdo intuu cunin karo waxyaala sunno ah jira sunno kooniya jiro sunnooyinkaas ama qofka inuu hurdo fiican seexdo si caafimaadkiisa u fiicnaado way badan tahay balse wax wala sabab ay leeyihiin marka su-aashani waxay tahay maxaa sababa kala taga faraha badan ee dumar iyo rag shukaansada ee kala taga waxaana halkan kale aan ku caddayn doonaa in laba qoyska naftarkiisa waxyaalaha sababta ah inay kala tagaan 3 qodob mid ka mid haddii laga helo mid ka mid ah hadduu soo dhexgalo qoyskaasina ma jiri doono haddii ay shukaansi ka dhexeeyana ma jiri doono oo waa lagu kala tegi doonaa kusoo dhawaada saaxiibayaal waxaa iga xasuusin haddii ay macluumaadkayga qalad noqdaan waa qalad hadday saxna noqdaanna waa sax micnaha ma ahan waxay kor ka soo dega ma ahan wax aniga aan istusay waaye waxaan oo maxaa ku yiraahdaa aan isku aadiyay ama aan ugu talagalay inaan dadka ugu faa'iideeyo ma aha waxaan target ku saarayo in aan iska hor keeno ama aan tilmaamo waxaan jirin waa wax baartaan ku sameeyay waaye sax way noqon karaan qalad way noqon karaan marka haddaan u galo qodobka koowaad waa been iyo khiyaano qof walba fahmi kara umaleena been iyo khiyaano waxay tahay micna kale muusi baahno labada qof ee shukaansiga ka dhaxaysa ama labada qof ee wada hadlaayo ee guurka raba inay samaystaan guur inay samaystaan ama guri barwaaqo degaan waxyaalaha ugu weyn ama waxa ugu weyn ee labada qof kala geeya ama isku dira waa been iyo khiyaano macnaha been iyo khiyaano waxay kala duwan yihiin beenta qofka inuu wuxuu asaga ahayn iska dhigo waa waxyaalaha keena kala fogaanshaha labada qof ee guurka raba inay samaystaan ama raba inay nolosha ugu mideeyaan qodobka labaad waa khiyaanada macnaha waxaa ka wadaa khiyaanada wuxuu ku sameynayaa naftiisa iyo asaga naftiisa wuxuu u khiyaanayaa inuu ka dhaadhiciyo wax aan jirin sida in qofkan uu yahay mid uu ku meel gaarayo ama inuu san guud diyaar u ahayn naftiisa laakiin uu ku wado shukaansi been ah oo marka dambe la gali doono meel xun waxyaalaha keena ka mid tahay waxyaalaha labada qof ay kala fogeynayaan ka mid tahay beentaas iyo khiyaanadaas qodobka labaad haddaan u galo labada qof ee wada shukaansanaya kala tegooda qayb weyn ka qaata waxaa ka mid ah hadaf cayiman ma jiro labadan qof way isbarteen ama meesha doon ha iska bartaan ama Facebook ha iska bartaan ama Instagram ha iska bartaan ama toos ha isku bartaan daris ha noqdaan ama gaari dhexe isku bartaan ama qof kale ha baro labadan qof koowdii hore markay wada hadalka bilaabayeen ila shukaansigu waxaa waaye labada qof inay wada hadlaan iska wareystaan wax waliba ayuu caddeynaya sidaas darteed labadan qof maba lahayn hadaf ah inay isguursadaan tusaale ahaan ma lahayn waxay ka ahayd waa la shukaanso ama waa la hadal inay hadalkooda ku koobneed laakiin hadaf uusan jirin hadduusan hadaf jirin cayiman oo guur ah ma imaan karto marka in hadalkaas iyo shukaansigaas uu guulaysto mana laga yaabo inuu guulaysto sababtoo ah hadaf aad u socoteen maba jiraba laga yaabo inuu qofka kale hadaf lahaa laakiin oo qof ka mid ah uusan hadaf lahayn ee ka ahayd iska hadal waa la hadlaa ama maalaa yacni iyo waqti lumis uu watay qodobka saddexaad u dambeeya waxaa waaye shaki oo soo dhexgala labada qof oo shaki soo dhexgala waa qodobka saddexaad ee musiibada ugu weyn ah labadan qof in shaki soo dhexgalo oo wada hadlaya waxay ka qayb qaadataa in labada qof ay ku kala tagaan laga yaabo shaki qof ka mid ah inuu soo galay qofka kale uu daacad yahay laakiin uu ku burburo
wada hadalkii iyo dhisidii gurigii lagu balansanaa. Saddexdaas qodob mid ka mid ah haddii uu soo dhex galo labada qof ee wada hadlaayo ama been soo dhex gasho iyo khiyaano isla socda labada amaba kala haraan. been hadaa sheegtid khiyaano ku jirtaa. qodobka labaad oo ah in hadaf la lahayn oo guurba aan laga sheekaysanin laga wada hadlay mala yacni waxaa jirin biyahan kaa dhex arkay iyo been hawaas ah waa ku jeclahay oo afka keliya ah laakiin hadaf guur aan laga wada hadlin. weligii waxaa laga yaabaa dad 2 sano wada hadlaaya aan weligood ka wada hadlin guur. guri sidee degnaa, nolosha sidee u wadaagnaa, maxaa meherkaaga yahay, waalidka see ula macaamilnaa, ma goormee maba laga hadlinba. waxaa laga hadlay keliya biyaha kaa dhex arkay iyo maxaa leeyahay meel heblaha iskugu imaano oo aadno awey iyo meel jin aadno. maba laga hadlin guur iyo hadaf maba laga hadlin. ilaan labada qof iska hadlaayaan waana jirtaa dad badan ee arrinta isku dhacday. qof waxaa arkaysa ku dhaca 2 sano wada socda laakiin waa kala tageen. maxaa kala tageen? weligooda kama hadlinba guur kama hadlin. laga yaabo qof ka mid ah inuu soo bandhigtay guur oo hadaf lahaa laakiin qofka kale oo ka cagajiida oo dhahay hadda aniga diyaar uma ihi mise maxaa ku yidhaahdaa bal aan isfahano. maxaa la isfahmaa? isfahanka goormoo imaadaa? sidiisa ma isweydiis. isfahanka wuxuu imaadaa labada qof markay hadaf leeyihiin. sababta 2 qof oo hal wado wada socdo oo haddana kala jeeda meel ma wada tagi karaan. sababta ninkan koonfur u socda ninkan bari u socda hal meel ma wada tagayaan. sababta qofkan hadaf uu leeyahay guur ayuu diyaar u yahay, adigna hadaf ma lihid. shukaansi iyo waxaa kaa tahay mala yacni iyo waqti lumis iyo inaad niyadda ku dhisatid keliya kaa tahay. qodobka saddexaad waa shakiga waxyaalahaasoo dhan oo ka dhasha haddii uu qofka hadaf leh shakiga waa imaanayaa. sababta waqtiga ku dheerayso qofkan waxuu noqonayaa shaki inuu imaan qasab. haddaa been u sheeg shaki wuu imaanayaa. haddaa khiyaano badan tahay shaki wuu imaanayaa. dad badan ayaa aaminsan labada qof ee shukaansanaya inay khiyaano ka imaan karin. labadan qof ee shukaansanaya khiyaano way ka imaan kartaa. khiyaanada ugu weyn meesha ka bilaabato meeshaas waay. haddii gurigaas been iyo khiyaano lagu dhisana lagama yaabo inuu sii jiro. waa ku mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.